tababarkani ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland u qabatay xubno ka socda xarumaha caafimaadka gobolada AWDAL iyo Salal ayaa waxay ujeedadiisu ahayd sidii looga hortagi lahaa cudurka duumada maadaama lagu jiro waqti roobaadka isla markaasina ay ka dhalan karaan xanuuno kala duwan sidoo kale tababarkani ay qayb ka ahayd sidii looga wacyi gelin lahaa bulshada inay ka foojignaadaan tababarkani oo muddo 5 cisho ka socon doona hotel Haldoor ee magaalada Borama ayaa waxa furitaanka ka qayb galay maamulka gobolka AWDAL madaxda wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka heer qaran waxaana ugu horeyntii sharaxay tababarkan iyo ujeedada laga leeyahay madaxa waaxda duumada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Abdilaahi madaxa xarumaha caafimaadka aasaasiga ah ee gobolka AWDAL Mawlid Yusuf isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka AWDAL Maxamed Cumar Yaaba iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka AWDAL Cabdiraxmaan Axmed Cali waxayna sheegeen ujeedada hadii aan ka hadlo training-kan waqtigan aan ugu beegnay waqtigan oo ah waqti roobaadka ee la isbedgelinaya ama la sugayay cudurrada ka dhasha biyaha oo dhan inay yimaadaan la yiraahdo waterborne disease-ka ayaa mashruuca xakamaynta duumada oo hoos yimaada waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadku ay u qorshaysteen in la qabto tababaradan laguna qabto meelaha roobku ugu xoogan yahay sida gobolka AWDAL oo kale cream ka soo qayb galayaasha waxaan doonaynaa oo aanu ka rajaynaynaa tababarkan wuxuu socon doonaa 5 cisho 5 cisho waxa lagu tababari doonaa sidii heegan looga ahaan lahaa maareynta oo ah diagnosticada iyo treatmentka sidee loo helayaa qofka caafimaadka iyo sidee loo daaweynayaa qofka qaba cudurka duumada tababarkan hadda u joogno waxa la yiraahdaa malaria case management ama sida loo maareynayo qofka marka duumada ama kaneecada qaba waxaana lagu tababari doonaa 7 health facility oo min 2 qof looga yeeray 14 Borama 14 looga yeeray 3 district ama degmo ee kale Saylac iyo Baki iyo Lughaya sidoo kalena waxa socday tababar private hospitaliska iyo ku shaybaadhada waxaan ka hortegaynaa oo amba shaqaalahan caafimaadka training-kan loo siinayaa inay hadhow toolo wixii ay la kulmaan ku daweeyaan shaqaalahooda caafimaadka ee ay kaga yimaadeen goobahana ay training-ka dib u siiyaan oo ugu celiyaan taasi oo dhaqaatiirta iyaguna muxuu ahaa iyo kuwa barefadadana iyagana si gooniya iyo kuwa laabkana loogu qabanayo runtii waa gurmad baynu wadanahay gurmadkaasina maadaama ay la marayo waqtiyadii roobabku ay daayeen lagana baqayo inay ka dilaacaan cudurro sida duumada ama xanuunadii kale ka dilaaci jireen laga baqayo waa u diyaar garow maaha imika cudur jira oo dilaacay oo imika in media ka sheegina ma jiro ay diyaar ugu ahaadaan dad u tareerin gareysani inay daaweyn karaan kana baari karaan waa inta macnaheedu waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Borama.